hormo uma qashay erayadan la dhahayo afka qalaad misogyny iyo misandry waxa laga yaabaa dad badan oo magacaas leh ama lagu astay inay magacaas leeyihiin in la kulanteen laakiin aan laga yaabo inay ku qaladeen xanuunkan la dhahayo ama dabeecadahan la dhahayo narcissism misogyny waxa waaye ragga inta badan naceebka goonida u qabo dumarka yani bas wax kale ma necbo ama wax kale ma ku dhibaateynaa waxay ku dhibaateynaa عشان dumar inaad tahay hadii ay dhacdo in sabab keento ama bulshada ay ku qasabto in uu ku guursado waxa laga yaabaa inaad kala kulantid dhibaatooyin badan adiga xataa isleedahay waxa ku qaldan tahay maxaa waay inta badan waxay u egyihiin dhanka oo narcissism dhanka oo narcissista dadka la dhahayo laakiin waxay uga duwan yihiin kuwan waxa laga yaabaa oo narcissista in marna ay jecel ku tusaan marna dantii leeyihiin markay ka gaaraan si kala kula dhaqmaan laakiin kuwan waxa laga yaabaa inaadan jecel ka arkin waxyaabaha ay kula dhacayaan ama waxay ku qabsanayaan ama waxay qalad ka dhigayaan ama waxa ay ku cariirinayaan ama qaar isdhahdid maxaa ku galabsatay ama maxay ka rabaan ciqaabtan ama maxay ka jarayaan yani in adiga dhan maanta dhan su'aalo isweydiisid dadkaas hadaba bulshada inay ku dhex jiraan laga yaabo dadka qaarne inay u keento trauma ay qabaan ama dhibaato ay soo arkeen dadka qaarne in ay yihiin dabeecad ay ku dhasheen hadaba iyadoo midaas la mid ah oo cagsigeeda ah waxa jir la dhahayo misandry waa inta aan soo sheegnay cagsigeeda dabeecadda markaan waxa iska leh qofka dumarka ah dhibaatooyinka qofka geysanayna yani waa isla qofkaas oo dumarka ah hadaba waxa jira meelo badan ay ka hadlayaan ama meelo laga wareesto qaarkood oo markay hadlayaan laga yaabo qaabkay u hadlayaan hadii aad tahay qof aan wali guursanin in guurka dhan ku nacsiyaan negative ay sheegayaan heerka uu leeyahay iyo cabsiyaha ay ku muujinayaan hadaba waxa rajeynaa inaad si uga digtoonaatid ama ay ku kala saarnaadaan rajeynaa inaad wax ka fahanteen assalaamu calaykum waraxmatullaah halkani waa xarunta Carefasol xaruntii ugu horeysay ee nooceeda ah ee lagula tacaalo dadka qabatiimay isticmaalka maandooriyaha lagana hirgeliyo Soomaaliya halkani ma aha xabsi ama goob lagu jirdilo dhibanaha ee waa goob uu ka helayo dib u kabasho dhameystiran waxaan sidoo kale u sameynaa bukaanka wacyigelin nafeed tababarro xirfadeed la talin caafimaad iyo ka dhaqista qabitinka maandooriyaha Carefasol saaxiibka dhibanaha wixii faahfaahin waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonnada shaashada kaga muuqda